الرحمن الرحيم وزارة dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland waxay sameysay xalfadaas oo ugu talagalnay tiimkii gabdhaha kubadda kolayga ee ku guuleystay tartankii 6 xaafadood ee magaalada Kismaayo oo runtii dhamaaday bishii hadda la soo dhaafay ayaan u qabanay xalfad abaalmarina in lagu abaalmariyo laguna dhiirigeliyo runtiina waxa waaye talaabo hor loo qaaday waxaana go'aaminaya dhammaan ciyaartooyda qaar qaasatan Olympic qaasatan kubadda kolayga horumarka laga gaaray ee dowlad goboleedka Jubbaland waa markii ugu horeysay runtii tiimam dhisan oo maxal lahay oo gabdha ah oo garoomo ayaga u gaar ay ku ciyaarayaan ay ku tartamayaan maxal lahay kubadda kolayga oo wasaaraddu qorshaheeduna hadda tahay in ay gabdhuhu yeeshaan garoomo u gaar ah maxal lahay macallimiin u gaar oo gabdha ah si loo ilaaliyo heybadooda iyo sharaftooda ragana looga dhaxsaaro haddii Ilaahay raali ka noqdo annagu waxaan nahay dad Soomaaliyeed muslimiin ah inaan runtii ku dabaqno diinteena waa muhiim barnaamijkaas hadda wasaaraddu wada haddii Ilaahay raali ka noqdana waxaan rabnaa barnaamijkan inaan sii ballaarino lana gaarsiiyo dhammaan deegaanada kale ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa hadda wasaaraddu tababartay 15 macallin oo gabdha ah oo xirfadda la siiyay sida loo tababaro gabdhaha kubadda kolayga 15ka gabdho aan rabno in dhammaan deegaanada kalena la gaarsiiyo deegaanada kalena laga hirgeliyo garoomo gabdhaha u gaar ah u xiran oo raggu ay maxal ay ka madax banaayeen marka xalfadiisu fiican noogu soo dhamaatay gabdhihii waxa ku guuleystay xaafadda Farjano oo u hambaleeynay koob iyo abaalmarin iyo shahaado sharaf iyo lacag aan isugu darnay si ay ugu dhiiradaan insha Allah taala dardargelinta wasaaraddu way sii wada doontaa mahadsantii